shirkadda caalamiga ah ee digaaga ee Al-Muntaxida ee soo saarta beedka iyo hilibka ayaa maanta maamulka iyo shaqaalaha kala duwan ee xaruntaasi waxay soo bandhigeen waxyaabaha ay bulshada u qabato shirkadoodu. Shirkadani oo ah shirkadii ugu ballaadhnayd ee nooceedan oo kala ah ee laga furo guud ahaan dalka ayaa maanta mulkiilaha xaruntaasi Cabdiraxmaan Hayne waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada ka dambeysay furitaanka xaruntani iyo waqtigii la furay iyo inay door weyn ka qaadatay shaqo abuurka dhalinyarada kala duwan ee guud ahaan Somaliland. sidoo kale mulkiilaha xaruntaasi waxa uu ka warbixiyay tirada shaqaalaha ka shaqeeya xaruntaasi isagoona sheegay inay ka shaqeyso shirkadani dhammaan gobolada kala duwan ee dalka. ninkii imika hadlayay hore wuxuu ahaa dhakhtarka meesha waa dhakhtar specialist waxaanu ka soo qaadanay Yemen waa nin khibrad leh oo 40 sanadood ka soo shaqeynayay digaagan iyo cudurrada la xiriira iyo waxyaabaha alxamdulillah rabbil alamin wuxuu naga caawiyay wax alla wixii digaag u baahnaa caafimaad meesha aanu fadhinaa waxa weeye waa farmasiga loogu talagalay dawooyinka digaaga oo dhan nooc walba ha noqdeen 2015 baan asaasnay shuruucan waxa ugu dhaliyay kulley qofku hawaayad buu leeyahay waxaan jeclaa waxaan wadanka ka jirin inaan ku soo kordhiyo taas ay ugu kaliftay inaan mashruucan bilaabo joogan ahaa lacagta inta badan waxaan ka soo shaqaysanay dibadda ilaa 400 kuna waxaan ka soo qaaday dibaddan kala nimi laakiin mashruuca imika lacagta ku jirta waa ilaa 750 kun weeyaan waa ilaa 30 kun oo xabadood weeyaan maalintii waxay soo saaraan 20 kun oo xabadood oo beeda la iibgeeya Boorama iyo hareeraheega oo dhan Soomaaliland oo dhan oo Hargeysa ugu badan tahay waliba inta badan waxa ka shaqeeya ilaa 230 qof baa ka shaqeeya boqolkiiba 80 waa Soomaali. dhakhtarka guud ee shirkadani digaaga ee magaalada Boorama ee Al-Muntaxida iyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha xaruntaasi oo laga keenay dalka dibadiisa ayaa waxay sheegeen We are now in the pharmacy. This pharmacy includes the medicines, antibiotics, vitamins for the chicken. There are many kind of drugs or medicine like this Toxioxy is antibiotic strong. This is for poultry and also for large animals. This is vaccine for Newcastle for the chicken, Newcastle disease, and also this is for the coryza. مشروع هنا في بورما وإن شاء الله الشركة تعمل الآن في منطقة في محافظة هرقيسة في صوماليلاند عشان تكون هناك المقر الرئيسي للشركة لأن طاحون هي الشركة تعمل الآن على طاحون في ما بين بربرة وهرقيسة ثم فقاسة دواجن. si kastaba ha xaruntani digaaga ee magaalada Boorama laga furay Al-Muntaxida ayaa shirkadii ugu ballaadhnayd ee nooceedan oo kala ah ee laga furo guud ahaan dalka. Waa Cabdilaahi Daahir waa STV caalamiga SAP magaalada Boorama.